بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اما بعد هورت الهي با مهله الحمد لله الهي با مهله asaga ayay mahad u sugnaatay. Waxaan joognaa waa tuuladii wada jir. Waxaan joognaa anigoo magacayga ku hadlay Axmed Ismaan Jiilal. Waxaan joognaa waa gurigeygii aan fadhino maanta. Waxaan ka hadlaynaa duruuf ka jirta goobtan aan joogno. horena uga soo jirta in badanna soo jirta annagoo deegaankii ilaahay meeshaas digaya ahna ilaa saqiirnimadayadii meeshii aan ku soo dhalanay imankana ay dhibaato barobaran ilaa mar hore ay ka jirto ay og yihiin caalamka oo dhan ama dawladda oo dhan taasoo ka mid a ugu dambayn ilaa iyo maalinta ay bilaabantay dusha naga saaraan annaga shalay waxaan maqlaynay hadal uu noo soo diray ninka meesha nagu haystaa beesha aan deriska nahay aan jaarka nahay isagoo ayna la qamin raygaasi beesha isaga uu ka soo jeedo isaga qaas ahaantiisa uu leeyahay waddan baa layga qaatay amba meel baa layga qaatay uu leeyahay ma aha meel la qaatay ilaahay baa waddanka sameeyey dhagaxna ilaahay meeshuu dhigay wuu yaallaa waa damac ayaanu aragnaa hadalkaas oo ah dhibaatadii hore uga soo dhacday meesha dabayaaqadii daba joogta halkan dhacdooyin badan baa ka soo dhacay anigu nin waxaan ahay yar miihi 50 iyo sanadkaygu maraya meeshaas waan ku dhashay waqtigaana waan ku soo gaadhay ilaa iyo waqtiga maanta cirada iga soo baxdana waan taagnay waxa uu ninkaa sheegayana kuma aragano isagoo degaankani yaalla ma arag isagoo oo beeshani dhex yaalla ma arag isagoo meheradlana ma arkin dhacdooyinkii intan anigu waxaan halkan degaanka reebaadiye ayaan ahaan jiray buurcad ilaa buurta sheekh khawaare intaa degan dhexdiisa ka bacdi 2005 baan soo dego magaalo ahaan u soo degay halkan waxaan ka beertay dixdaas meel yar oo beer oo aan xawaash carruurta uga beeri jiray ka bacdi dhibaatadaasi markay soo dhammaatay ilaa dabayaaqadii soo socotay dhacdooyin waaweyn oo damacahoo guudaa ka yimid darka dhanaan ayaa dhibaata ka dhacday xooga anigoo soo duubay hadalkaas oo aanan tafaasiishiisa aanan ka bixi karin dhibaatadii markayse halkaas ka dhacdayna dawladda ayaa soo faragelisay dhacdadaasi mid maahay loo maahay saddex aakhirkii waxay ku damaysay in dhagar la gaadho dhagarkaa ka bacdi markay dhacday waana la kala xakameeyey labadeedii beelood ee deriska ahayd ee jaarka ahayd waa la kala xakameeyey dad kala go'i kara maayo dadkaasi waxaa ka siman adeega safarka socotada iyo meelo adeega ama gurmudka kale laakiin degaan ahaan waan ku kala qaybsanaa tii oo sidaa tahay waxaa lagu sii kala qaybshay dhacdadii meeshii ay ka dhacday inta urtaa meesha taalla ama dhibaatada iyo dhiigga meesha yaalla laga qaadayo bahabar celi oo maaragtay beesha aan jaarka anahay inaynan darka dhanaan qof hoos u soo dhaafin degaanka ciise inuunan halkaa maaragtay darkaa dhanaa isagna sare u dhaafin taas baan ku kala joognay dawladdu dhammaan waa ka marqaatay ilaa heer wasiir ilaa heer gobol waxa wada yimidda dhammaan dhibaatadaas markay dhacday 4 wasiir iyo maamul goboleedku siduu u dhan yahay dhammaan waa la wada yimiday waxa la saaray xakamahaasa meeshaas la saaray tii baanu ku joognaa annagu kabacdi iminka waxaa noo dambaysay in ciidan lanoo soo hubeeyo oo carruurta iyo maaragtay weerar lagu soo qaado iyo maaragtay xaasaska iyo beeraha iyo maaragtay dadkii dee tabcanayay nin kastoo maanta dhammaan ama ciise hataa ama samaro haatay dadku u wada tabcdaa dhulka nina beer ma daayo waxbaa la xakameeyey waxbaa ma ogoladii wixiis waa laga tegey kuma haysana annagu inta imika ay degan yihiin annaka intayadii aan deganayn waxa lanoo soo cabeeyey uu ninkaasi weliba nagu soo cabeeyey uuna aanaynayn beesha bahabar celi 4 aanan u wada aanyeyn oonan ku wada ceebeynayn uu ninkaasi khaasatun u yahay waxaa nagu soo gaadhay 20 inan oo yaryar oo barjo la soo siiyey inay galaan meeshii xoog ku galaan iyagoo hub sita oo maaragtay waxay doonaan samaynay annaka oo weliba ka maqan meeshii aniga khaasatunka axmed ahaan carruurtaydii waa la kala farxiyey beertaydii waa la galay tii kalena maaragtay waa la galay dadkii joogana way ka wada farxadeen galabtii markaan dhiminayna waa la isugu soo noqday weerarkii galabtii waxaan ka yidhi waar kaalaya
maxaad doonaysaan siilkooda ma doonaynaa meesha ciyaalkaagana ka qaado xamaanta waxara maaragtay carruurtaadana sidaa tay ku guraa lagu yidhi waan iskaga aamusay annagu waxaanu ka mid nahay anaan u saaxiib nahay inaan nabadgelyada gacanta ku hayno oon dadka gaadhsiino mas-uuliyiinta amase amniga aan gaadhsiino uma raacin galabtii marka joogto salaada casarkana weerar baa la qaaday rasaastii lagu riday wataa horteeda taalla ilaahay ballankiis wataa horteeda taalla ay gacantooda